annagu ciidankayga halkaad ku arkaysaan waxaanu nahay askartii u shaqayn jirtay dowladdii boqortooyada ingiriiska markii ay dalkeena xukumi jirtay ciidankii maalintaa noolaa ee shaqaynayay dee maanta wax yar baa ka nool inta noola wax yar baa socon kara intii kale gobashay jiifaan sidaa awgeed waxaanu nahay maanta dad ka nool quruumo hore tegey quruumo dhintay dadka nool baanu nahay quruumo dhintay dadka nool ayaanu nahay waxaan in yar dul marayaa laba qodob waa intii ka horeysay gobonnimada ee ay ingiriisku halkan joogeen marka ay ingiriisku inagay nala joogeen gumaysi may ahayn waxaynu ahayn maxmiyad ingiriisku ilaaliyo annaguna waxaanu ahayn askartii loo adeegsanayay ilaalinta maxmiyadda Soomaaliland iskood macnaheedu waxa weeye halkan aynu maanta ka nidhaahno ciidanka qaranka oo kale yani waxa ciidamadii ilaalinayay dowladda boqortooyada u shaqayn jiray ee maxmiyadda Soomaaliland joogay baanu nahay ilaahay baa mahadle wuxuuna soo gaarsiiyey maanta inaanu joogno 65 sano ka bacdi inaanu ka soo qayb galno munaasabadda qiimaha leh ee loo samaynayo maalintii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed xor ah laga taago carradiisa inaanu joognay maantana joogno waa ilaahay mahadi intaa ka bacdi markaa hore intii ka horeysay gumaysigii isticmaalka inagu maynaan ahayn dad la gumaysay maxmiyad la ilaaliyaynu ahayn halgankii loo soo galay gobonnimadana dee halkan baa laga sheegaya waxa weeye dad badan baa u soo halgamay hase yeeshee halgankaasi khasaaro badan inama gaarsiin innaga dad badanoo ku dhintayna ma jirin dad lagu xidhxidhay oo la ganaaxayna ma jirin si sahlan baa laynoo siiyey xornimada hase ahaatee innagoo ka cararayna haddii alla ku reeyay inaynu shantii Soomaaliyeed meel la isugu keeno ayaynu la tagnay 4 maalmood ka bacdi xagga koonfureed xamar ayaynu la tagnay halgankaa dambe maalintii ugu horeysay 60kii markay ahayd